waa salaamintiin dadka Soomaalida adduunka meel kasta jooga. Channelkan waa Somali Bitcoin. Somali Bitcoin wuxuu ka sheekeynayaa oo ka hadlayaa warka cusub ee dhinaca Bitcoin iyo cryptocurrency-ga. Haddaad ku cusubtay channelka, welcome oo ku soo dhawow. Like, subscribe taabo si qof kale insha Allah adduunka jooga uga faa'iideysan karo information ka sheekeynayno iyo warka cusub. Soo dhawaada. Marka waxaan ka wada hadlaynaa maanta waxa Bitcoin. Marka in Somali Bitcoin ku soo dhawaada. Marka channelkan waan sheegay waxa weeye waa channel waa financial advice maaha. We don't give any financial advice. Waxa weeye waa educational. Waxaan isbaranayo waxbarashan ka wada hadlaynaa halkan. Marka maanta wax ka wada hadlaynaa waxa Bitcoin la sheegaya waxa Bitcoin kan wuxuu qiimi waana waxa Bitcoin waxa lagu leeyahay waa the world first successful decentralized cryptocurrency. Marka waa cryptocurrency la isticmaalo adduunka laga isticmaalo oo decentralized waxa markaan bangiyaasha iyo dadka la insaanaysa u dhexgelin waxaana sameeyay in la yiraahdo Satoshi Nakamoto isku sheega sameeyay. Marka Bitcoin wax kale ma aha waa lacag la isu dirayo xagga cryptocurrency-ga adoo lacagta cash haysta bedelan kartaa anta bangiga dhigatid bedelan kartaa Bitcoin kasta qof doonto u diri kartaa iyagoona inna ku soo dhexgelin inaanay ku cashuurta ku bangiga inay inna ku soo dhexgelin. Marka waa ta Bitcoin. Marka Bitcoin waxa weeye waxa lagu leeyahay Bitcoin can be divided into a smaller unit known as Satoshi up to 8 declined places and use it for payment. Marka waxa la qaybin karaa sideed wax la qaybin karaa oo lagu isticmaali karo marka qofku xibsinayo waxaan waana asset oo sida dahabka waa stored as value gold bal lagu leeyahay. Marka marna soo kacaya marna hoos buu dhacaya. Marka waa sida dahabka la isticmaali doono. Marka waana 20 milyan qora weeye waxaan maaha lacagta la iska daabacayo intaas bilyan ma la iska daabacayo amba dollar noqdo ma pound amba euro noqdo amba Somali shilling noqdo wuxuu doona noqdo maaha lacag la iska daabacayo. Bitcoin waa 21 milyan qora. Marka qof markuu mid xabad haysto marka baalku dhicirku maraya. Marka marna soo kacaya marna hoos buu u dhacaya. Waata marka laga hadlayo Bitcoin waxa marka hore la abuureysaan sheegay in lacag la isu soo dirdiro san inuu ogaan oo marka hore inta badan dadka bangiyaasha kornay waxa wana bixisaa dad qofka inta u diraysid. Marka laakiin Bitcoin ku toos ba soo diraysa hadana Bitcoin waxa ku fiican tahay wax kale ma waxa weeye wixii markiiba helaysaa ma sugaysa 2 markaad wallet isticmaasho wallet wuxuu bahal telefoonka ku jiro Bitcoin-ka lagu hayo markaad ka isticmaashid qofkii kale walletkiisa ku riisay adressiisa ku soo diraya marka lacagtu marka waxaad imanaysaa markiiba. Marka marka waxaan wax korayo marka la isticmaalayo regulation badan u baahan yahay waxa si dawladdu ku dhex jirta laakiin waa waxa marka adduunka laga wada hadlayo loo isticmaalayo laakiin wax taagan ma aha marna hoos buu dhacaya marna sare buu kacaya. Marka waxa marka go'aan ma aha laakiin wuxuu ka bilaabmay si la sheegay ugu yaraan wax yar uu ka bilaabmay 2013 in kan wax maraya inta $1,000 buu maraya imka. Marka waxa marka laga shaqeynayo dawladdu ku dhex jiraan weeye waxaan wax kale lama abuurin waxa weeye in lacag la isu diro si dhaqso badan oo imika waxaan isticmaalo mid kale oo ka si fiican weeye oo degdeg kugu imanaysa. Marka dad badan imika ka faa'iideystaan wax badan ba ka macaashin because waxa bilaabmay isagoo blogiis ba bilaabmeen laakiin weligaa imika never too late maaha qofku wuxuu baahan yahay education sameeyo wixii inuu isbaro oo wixii inuu akhriyo u baahan yahay. Marka waasaan sheegay wuxuu noqon doonaa digital gold wax kale maaha istidaabka la isticmaali wax kale ma waxaan soo kacaya marna hoos buu dhacay marna soo baxaya. Marka taasuna marna xumaanaysa marna fiicnaysa sida adduunka. Marka waxa ku xiran tahay xagga adduunka marina dagaal ma jira cuntada ma yar tahay waxaan qofku markuu xibsanayay marka dadku xibsanayay marka amba marka dad ka xibsanaysid dawlad kale amba wax kale wax ku xiran tahay economy ku xiran tahay laakiin marka Bitcoin wuxuu noqon doonaa wax taagan uu noqon doonaa marba dadku isla wada fahmi doonaan. Marka waa wax marka mustaqbalka imika aad looga shaqeynayo oo imika regulation buu baahan yahay wana dawladdu ictiraafta marka dawladdu ictiraafto waxaas marka laga wadan karo laakiin wax kan wax weeye wax kale ma aha wax laga faa'iido taajir waxaad doonaysaa waxaan ka taajira ma waxan waa investment waa future investment waxaad markaad garanaysid mustaqbalka aad soo leeyahay waxan muu kacaya mise ma kacayo marka waa xagga investment weeye marka waa ta marka laakiin adiga ku xiran tahay xagga dhiganaysid is up to you like you have to make your own
you have to educate yourself and make your own choices because this is no financial advice anigu financial advice ma bixin qofku inuu educationka marka wuxuu inuu akhriyaa oo sugan informationkii baadha anyway meesha waan dadkayga asxaabta waan meel kastoo joogtaan waan meeshan information kale waan kusoo qoraya channelka si aad uga faa'iidaysataan like subscribe-kana taabtada ku cusub tihiin saan soo caawino si qof kale waxaan uga faa'iidaysan karo وإذا كان أركب حن استعمالنا chat key بن استعمالنا Coinbase باش exchange كله رده دين أمريكا Coinbase وحكاركتان ما أنتو حمرية بيش ما أنتو سجالة وانك جرا لو دي كوني يلا لباتن وي 2022 مركب حركتان ما أنتو حمرية ستيت وانكم يو صدق بقول تدوات لكن وحن ومر وحس بالدليل وهذا كارك صاروا كعيا وسبوا كعيا ما ننتصر دين على خاضلي واتا مركا waxaan wuxuu ka bilaabmay hadda aragtaan dee anagno xagu marka anagno suga marka chartka la eego aniga chartkii wara 2013 waxa 60 yahay state gani maantana markii ugu sareysta sanadka hore waxa 51 buu ahaa 51000 buu ahaa ana in calaamadina hadana marka waan ka 51000 buu marka waxaan waxa ku xirantay economy marna sare u kacaya marna hoos buu ودعي من السرعة مركا هذا دين كيف سنة مركو بلامي لا ما تدم لعب المتفايد اللي هيد ما عرفت لكن أنا financial advice كما هاد لي لكن وحوي شنو نو financial advice لكن حوي وحكو حرنته وinvestment كاجا مركا وانا كاركا إما كساند له السان مكو ندو بني فيديو كواكا مقدنا السرو واكا مقدنا السرو واكا وقعي مركا وحن وحوي و up and down it needs regulation واسكا ما عرفت marka regulation buu baahan yahay marka waanay dawladdu marka waxaas keento regulation keento buu marka buu isbedelaya adu wax kasta wad keebsan kartaa doonaysa amba inta doontid wad lacagtiisa wad keebsan kartaa marka hada straight 5 sano kadib 5 years from now I'm going to invest and then I'm going to have a return you can do that waa dhici karta marka laakiin maha waxaan quick get rich ma lagu rakmita jirisid waxaan wax staa ma shaqaysid it does not work like that marka waxaan waxa weeye it takes time itself marka waana investment marka adigana ku xiran tahay dhinaca ka wadiisid marka laakiin wuxuu baahan tahay lot of education a lot of information bay baahan tahay anagno day trade kii shalay waan arkayna marka shalay waan ka arka waxay ahayd 8 iyo 516 bay ahayd markaasuu hoos u dhacay marka 17 buu gaaray 912 hadana sare u kacay marka waxan la isku aamini kara maaha marba sare u dhacay marna hoos buu baxaya marka waxan waxay ku xirantay dhinaca economic xagga adduunka marayo ama dollar ka dhacay ma pound ka dhacay dagaal baa socda maxaa adduunka jira marka waxaas ku xirantay marka waxan waxay baahan tahay a lot of education baahan tahay a lot of information marka qofku wana waqti galiya wax maalin laba lagu akhri karo aan ka sheekin karna maaha kaawata laakiin waxaan waa mid baa loo yahay waxaan waa wax marka maalin kasta koraya marka dawladka sababka u socdaan markuu u dhacay markuu interest wax la yiraahdo interest rate kiba sare laakiciya sanadkan marka taasna wax kale maaha inflation baa dhacay oo adduunkii baa yara kacay marka wax kasta qaali noqotay dagaalkan socdaan wax kasta qaali ka dhigay marka wax kasta qaali noqdeen marka inflation marka lacagtii yara dicif bay noqonaysa cuntadina way kacaysa marka waxaas inflation baa leedahay inflation kaas markuu dhacay marka bitcoin uu la dhacay ma aragtay inflation cirku maray wax kasta qali garoodi bitcoin marka soo dhacay dadka lacagtii ma haystaan dadkii waxay ku caabanayaan cuntada ku qaali garowday petrolkii iyo bensiinka ku qaali garowday marka hadda waa taa marka waxa sumika la dhacay laakiin markii hore intaan dhicina adan sanad u noqono deewaanka kaarka wuxuu aad iyo aad buu adkaayo cirku mariyay maaragtay qaali buu ahaa marka imika waxa ku xiran dagaalkii markuu dhacay hoos buu saa daatay dhulkii cuntadii baa qaali garowday marka dadkii marka lacagtooda laga way kala baxeen oo disay naftooda dadkooda u geliyaan maaragtay marka waxaan wuxuu u baahan yahay education badan buu u baahan yahay oo وانا لا اخريا ان ويب سايت كان marka hore dii akhrino meeshan ku soo qoraya hadaa u baahan tihiin in wax kale weydiisaan dhinacaana waan ka wada hadlaynaa marka bitcoin waxaan kaliya ma qaar badan baa jiro oo la yiraahdo ethereum baa jira oo solana jira oo mid qaar badan baa jira maaragtay marka waxa baahantay education badan bay baahantay wana ka faa'iideysataan oo ka akhrisataan marka waxaan wax imka adduunka imka laga wada hadlayo weeye marka waxaan jeclayna ka faa'iideystaan maanta inta ka hadlay hadda wax su'aalo beentin comment ka leave some comments so we can discuss anymore hadda wax kale beentin ka wada hadlayno insha Allah marka aad ba mahadsantiin like subscribe ka taabta saan soo qof kale wax uga faa'iideysan karo
Somali Bitcoin.